waxaana wanaagsan gebi ahaantiin baddaawadayaal waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyay ee dalka iyo dibadda oo hadaan oo kale ka daawataan janalka Gobson TV qodobada ugu door corona aad ku daawan doontaan waxa qayb ka noqonaya Fahad Yaasiin oo si degdeg looga yeeray fila Soomaaliya madaba in mar kale nisa loo dhiibi doono xogo culus oo aan helnay ayaad kaga bogan doontaa barnaamij wareedkeena daawadayaal maad salaad oo raadinaya cid u ceeb qarisa iyo hay'adii nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee nisa oo fadhiid noqotay ayaad kaga bogan doontaa fila Soomaaliya oo shaacisay mowqifkeeda ku aadan beegsiga qoysaska kooxda Al-Shabaab madaxda golaha wada tashiga qaran oo fariin u diray maamulka Somaliland hadaba maxay ahayd fariintaasi ayaad kaga bogan doontaa admis oo ku dhawaaqday in ay gabi ahaanba isaga bixayso Soomaaliya sheegtayna in la gaaray xilligii ay ciidamada Soomaaliyeed la wareegi lahaayeen amniga guud ee dalka ayaad kaga bogan doontaa barnaamij wareedkeena qodobadaas iyo qodobo kale ayaad ku daawan doontaa barnaamij wareedkeena balse marka hore daawade waxaan ka codsanayaa inaad channelka subscribe taabato muuqaalkan like dhaado oo aad u sii share gareysa saaxiibadaada kala duwan ee kugu weheliya baraha bulshada mar waliba waxaan u taaganahay inaan ku soo gudbino xogtii ugu dambeysay iyo sidoo kale warar xaqiiqda ku saleysan anagoo ku baahina halkan daqiiqad ka dambeysa waa maalinimo Talaado taariikhduna ay ku beegan tahay 1 bisha 11 ee November sanada 2022 waxaad ku soo dhawaataan qodobadii aad maqasheen oo intaasi ka faahfaahsan sida aan ku helayno xogo hoose ayaa sheegaya in taliyihii hore ee hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Fahad Yaasiin Xaaji Daahir sidoo kalena soo noqday la taliyaha xagga amniga madaxweynihii hore ee dalka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo in looga yeeray fila Soomaaliya Fahad Yaasiin Xaaji Daahir ayaa ku soo aadaysa yeeridan looga yeeray fila Soomaaliya xilli qaraxyo xoogan ay Muqdisho gilgileen maalinnimadii Sabtida ahayd kuwaasi oo galaaftay nolosha dad badan Fahad Yaasiin Xaaji Daahir ayaa loo maleynayaa u yeeritaankan in ay qayb ka noqon doonto in loo dhiibo jagadii oo horay ugu hayay ee ahayd taliyaha hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka oo uu maareeyay sidii ugu wanaagsanayd haatan hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka waxaa maamulamaha Maxamed Salaad oo si weyn loogu dhaleeceeyay in ay gabtay hawshii ay qaban jirtay hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Maxamed Salaad ayaana waxa sida weyn loogu dhaleeceeyay in aysan helin xogihii ku aadanaa in ay magaalada amnigeeda ay qayb weyn hay'addu ka qaadato xilligii Fahad Yaasiin Xaaji Daahir ayaa lagu xasuustaa wixii ka dambeeyay qaraxii weynaa ee Zoobe in ay si weyn ula falgashay howlaha amniga iyada oo fashilisay qaraxyo waaweyn oo lala damacsanaa magaalada Muqdisho hadaba waxa xilligan soo baxaya warar ku aadan in Fahad Yaasiin Xaaji Daahir mar kale dib loogu dhiibi doono maamulka hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka dhanka kale tana fila Soomaaliya ayaa shaacisay mowqifkeeda ku aadan beegsiga qoysaska kooxda Al-Shabaab madaxtooyada Soomaaliya ayaa ka hortimid in la gowraco maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab ama la beegsado qoysaskooda kadib markii falal noocaas ay ka dhaceen gobolka Hiiraan maleeshiyaadka macawisleyda ayaa dagaal ka dhacay gobolka Hiiraan 18 September waxay ku dileen 45 maleeshiya ka tirsan kooxda Al-Shabaab kuwaasi oo 3 kamid ay gowraceen sidoo kale gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeet Cismaan ayaa 16 bishan wuxuu macawisleyda ku amray in ay dilaan xaasaska iyo caruurta kooxda Al-Shabaab isaga oo sidoo kale lacag abaalmarina dul dhigay madaxda iyo saraakiisha kooxda Al-Shabaab Cali Jeet Cismaan ayaa sheegay in qofkii keena madax Al-Shabaab uu siinayo lacag
taasi oo uu ka dhabeeyay toddobaadyadii tegay isla markaana lacagtii ugu horeysay siiyay laba dagaalyahan oo keenay madaxyada kooxda al-shabaab hase yeeshee madaxtooyada Soomaaliya ayaa sheegtay intaasi aanay sax ahayn xuseen sheekh cali oo ah la taliyaha amniga qaranka madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa waraysi uu siiyay wargeyska Mareykanka ee New York Times waxa uu ku sheegay in gowraca uu yahay qalad ay tahay inaan la sii wadin xuseen ayaa sheegay in dawladda ay weydiisatay maleeshiyaadka macawisleyda inay joojiyaan fulinta ficilada noocaas ah waxaanu intaasi ku daray in dawladda ay la xiriirtay gudoomiyaha gobolka Hiiraan iyo dadka kale ee saameynta ku leh gobolka si looga fogaado in la beegsado xaasaska caruurta iyo ehelada xubnaha ee ka mid ah kooxda al-shabaab qoysaska mintidiintan ma ahan dad xor ah waxaana doonaynaa inay annaga isku keeyo soo dhiibaan ma ahan siyaasadda dawladda in la dilo rayid mana dhiirigelinayna ayuu yiri dhanka kaleetana madaxda golaha wadatashiga qaran ayaa fariin u diray maamulka Somaliland waxaa shalay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya lagu soo gabagabeeyay shirka golaha wadatashiga qaran ee u dhaxeeya madaxda dawladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa dawlad goboleedyada ugana socday filla Soomaaliya shirkan oo qaatay waqti ka badan intii loo qorsheynayay ayaa waxaa qaybo ka mid ah si weyn loogu bogaadiyay Somaliland gaar ahaan amniga iyo dimuqraadiyadda sanado badan jirsatay golahu wuxuu bogaadinayaa dhaqanka deganaanshiyaha siyaasadeed wada noolaanshiyaha iyo dimuqraadiyadda ay Somaliland ku soo caano maashay ayaa lagu yiri warmurtiyeed ka soo baxay shirka golaha wadatashiga qaran sidoo kale waxaa madaxda Soomaaliyeed ugu baaqeen shacabka iyo madaxda Somaliland inay ilaashadaan xasiloonida iyo nabadda ay muddada badan ku soo caano maashay Somaliland waxaa xusid mudan in warmurtiyeedkan ka soo baxay shirka golaha wadatashiga qaran Somaliland loogu yeerin maamul midaasi oo u muuqata in madaxdan ay aad uga taxadareen si aysan macno kale u yeelan fariintooda isla markaana ay u sii kala fogaan baaqa madaxda Soomaaliyeed ayaa imaanaya iyadoo Somaliland muddooyinkii dambe ka jirtay xiisad siyaasadeed oo la xiriirta arrimaha doorashooyinka kadib markii golaha guurtidu ay muddo kororsi u sameeyeen madaxweynaha maamulka Somaliland Muuse Biixi Cabdi